بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا وروحي دالك يدافع عالم كينيغا سو غاري oo aad ka daawataan shaashada telefishinka caalamiga ee CW warkana waxa idin la socodsiinayo anigoo ah Mawlid Galwa qodobada kuwooda ugu doorka roona waxa kamida madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug Cali Daahir Ciid oo gaaray magaalada Balanballe ee gobolka Galgaduud saddex ruux oo u dhimatay xanuunka coronavirus magaalada Muqdisho iyo tirada oo korortay أهل السنة والجماعة ودولة الصومالية كو ايديسي إنay galmudug gacanta u gelisay kooxa argagixisay bandow lagu soo rogay xilliyada habeenkii ee magaalada Muqdisho oo dhaqan galay daawadayaal akhbaaraadka dibaddana waxaad ku daawan doontaan dawladda Mareykanka oo ka fakaraysa sidii ay u xakameyn lahayd caabuqa coronavirus qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan warkayaga balse u diyaar garooba goordhow warkii oo fidsan isku soo noqod wanaagsan daawadayaal iminkana warkii oo fidsan aan ku bilaabe madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug ayaa gaaray magaalada Balanballe ee gobolka Galgaduud sida uu warbixintan uu inoogu diyaariyay wariyahayaga Mahad Bashiir Xilif wafdigan madaxweyne ku xigeenka dawlad goboleedka Galmudug oo uu wehelinayay ugaaska guud ee beelaha sida ugaas Maxamed ugaas Keese ayaa galkii dambe ee maanta ka soo ambabaxay degmada Cabud Waaq ee gobolka Galgaduud socdaal dheer iyo masaafo 90 kiiloomitir gaaraysa ka bacdi wafdiga iyo waliba mas'uuliyiintii kale ee la socotay waxa lagu soo dhaweeyay duleedka degmada Balanballe ee gobolka Galgaduud boqolaal kamid ah shacabweynaha magaalada Balanballe oo halkaas ku soo dhaweeyay wafdiga madaxweyne ku xigeenka iyo ugaaska ayaa halkaas soo dhaweyn iyo marxabeen ka bacdi waxa loo soo galbiyay gudaha magaalada Balanballe ayadoona la keenay goob loogu talagalay inuu kula hadlo bulshada degmada Balanballe ugu horreyn waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha degmada Balanballe Jaamac Xayle asagoona halkaas hadallo soo dhaweyn ka jeediyay waxa maanta sharaf noo ah inuu noo yimid madaxweyne ku xigeenkii dawlad goboleedka Galmudug iyo ugaaskii beesha sade iyo wafti ballaaran oo ay wadaan yaa noogu yimid degmada Balanballe waxaan leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada degmada Balanballe waa degmadiinii dad idin jecel baa jooga maanta oo dhan baa qorraxda la taagnaa salaadii maghrib iyadoo la galay baad ku soo aadeen laakiin dadku maanta oo dhan waa taagnaa wuxuu la taagnaa farxad iyo soo dhaweyn iyo rabitaan waxa weeye degmada Balanballe ku soo dhawaada waxay idin haysaa xushmad iyo sharaf teer iyo maalinkii la dhisay dawlad goboleedka Galmudug ugaaska guud ee beelaha sida ugaas Maxamed ugaas Keese oo qayb ka ah safarka madaxweyne ku xigeenka ayaa asaguna dhankiisa ka hadlay wuxuuna ku sifeeyay bulshada reer Balanballe dad in badan dawladnimada jecel u soo dhaweyseen madaxweynihiinii iyo dhammaan xildhibaanada iyo wasiirada waad ku mahadsantihiin ilaahayna idinka ajarsiiyo waxaan rajaynayaa si waxaana iiga kii muuqato dawladnimo iyo jacayl aad u qabtaan maamul goboleedkiina Galmudug aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqayaa sidaad u soo dhaweyseen madaxweynihiina iyo wasiirada iyo xildhibaanada dhammaan insha Allah ta'ala kulli waan wada sheekaysan doonaa waana is arki doonaa ugu dambeyntii waxa goobtaasi ka hadlay madaxweyne ku xigeenka dawlad goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid asagoona sheegay inuu Balanballe oo safarkiisa maanta uu noqonayo kii ugu horeeyay dhanka kalena uu mashaariic dhowr ka dhagax dhigi doono muddada uu ku sugan yahay magaaladani Balanballe salaan bacdigeed waxaan aad idinkaga mahadcelinayaa soo dhaweynta sharafta leh qadarinta mudan ee aan horay u arag ee aad caawa igu sameyseen degmadan Balanballe waxay caan ku tahay inay mar walba garab istaagto maamulka Galmudug abaal badanna way ku leedahay xaqiiqdii dhismihii Galmudug ilaa iyo hadda degmada Balanballe mar walba Galmudug way garab istaagtaa wiilal badan bayna ku weyday xaqiiqdii aad baan idinkaga mahadcelinayaa Balanballe waxay mudan tahay dib u dhis Balanballe waxay mudan tahay in tacliinteeda sare aad loo dhiso waxay mudan tahay wadooyin waxay mudan tahay in maamulkii golaha deegaanka loo dhiso si ay u hesho mashaariic degmadan lagu hormariyo
maamulkeennan cusub ee galmudug wuxuu diyaar u yahay magaaladan inuu ka fuliyo mashaariic kala duwan oo uu ugu horeeyo garoonka diyaaradaha ee degmadan way mudan tahay degmadan way mudan tahay inay hesho garoon diyaaradeed sababtoo ah populationkeeduna aad buu u badan yahay wayna mutaysatay xaqiiqdii mar labaad iyo mar saddexaad waa idinkaga mahadcelinayaa dowlad jacaylka iyo nidaamka idinka muuqda caawa waa idin hooyanayaa insha allah si dhow baan isku wareysanaynaa berrina insha allah garoonkii baan dhagax dhiganaynaa iyo weliba inaannu degmadan si weyn uga taageerno dugsiga sare ee degmadan oo xaqiiqdii aad u hooseeya safarkan ayaa wuxuu noqonayaa kii ugu horeeyay oo madaxweyne ku-xigeenka uu kaga soo ambabaxo magaalada dhuusamareebteen iyo intii doortay uu ka yimaado magaaladani Balanballe waa mahad Bashiir Xuseen mahad xilif telefishinka caalamiga CW degmada Balanballe ee gobolka Galgaduud magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya 3 ruux ayaa ugu dhimatay caabuqa corona iyo tirada oo korortay warbixintan waxa inoo dhameystirayo wariyahayaga Nasteex Farxaan Shidane wasiirada caafimaadka iyo daryeelka bulshada Marwa Fawsiya Abikar Noor iyadoo gudanaysa waajibaad ka saaran ee ay la wadaagto bulshada Soomaaliyeed hadba wixii soo kordhay xaaladda caabuqa COVID-19 waxay la wadaagaysaa qodobadan kadib baaritaanyo xaqiijineed cusub oo la sameeyay 24 saac ee u dambeysay waxa soo kordhay 20 xaaladood oo cusub taas oo ka dhigaysa tirada guud ee xaaladaha la xiriira caabuqa COVID-19 oo gaaraya 80 xaaladood tirada guud ee wadanka inta xaaladood ee ka jirta waa 80 shan way geeriyootay ilaahay oo naxariisto jannadii Allah ka waraabiyo sabar Allah ka warsiiyo intii ay ka baxeen labana waa iskuutay waa caafimaadkan ilaahay siiyo waxaan ku boorinaynaa ummadda Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed inay taxadar ka badiyaan inay u feejignoodaan inay dhageystaan fariimaha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka iyo bahweynta caafimaadka guud ahaan ay fidinayso wacyigelinta in lagu dadaalo in la dhageysto waxyaalaha lagu xakameyn karo cudurka inuu fido cudurka bulshada ayuu ka dhex dilaacay sida aan arkaynana baaritaanadii isbuucan la sameeyey waxaad ujeedaa inuu sii kordhayo tirada dadka oo cudurka haya waxaan ka codsanayaa bulshada weyn inay taxadaraan in laga ilaaliyo dadka waaweyn ee cudurrada dheer chronic ah qaba in si gooni ah loo xanaaneeyo in carruurta guryaha lagu celiyo in nadaafadda iyo gacmaha iska dhaqidda ilaa iyo ugu yaraan 20 second lagu booriyo cid kasta oo ka mid ah bulshada in haddii ay barnaamijda aadayaan basaska iyo raacayaan ay qaataan maskarada sanka iyo afka lagu xirto in gacmaha si fiican isaga dhaqo wax allaala wixii lagu xakameyn karo cudurka walaalayaal waa inaan ku foojignaana inaan ku dadaalnaa inaan kala fogaanshaha ku dadaalnaa in bixidda badan ee aan markaas dan weyn oo khaas u jirin oo degdeg ah in laga gaabsado in la dadaalo ilaahay dadaalkuna faray cudurkana wuxuu ku fiican yahay in la xakamo in laga hortago daawo malaha way xaaladihiisa dhibka badan markuu gaaro qofka wuxuu dhimanayaa neefto qabato iyo marka waxaa ilaahay ka rajeynaynaa inuu naga yareeyo naga koriyo dhibkiisa in bulshadeena badbaado aan gacmaha iswada qabsano aan ka wada shaqayno ka wada fikirno sidii cudurkaas aan uga hortagayno khatartiisu leeyahay hala ilaaliyo dadka nugul dadka cudurrada ee kroonikada qaba carruurta in lagu dadaalo nadaafadda in lagu dadaalo kala fogaanshaha in lagu dadaalo inaan meelaha ciriiriga iyo buuqada aan la gelin marka ilaahay hana waafajiyo wanaagoo dhan ilaahay dhibkiisa ha naga yareeyo ilaahay ha naga koriyo aad iyo aadan idinkaga mahadcelinaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Nasteex Farxaan Shidane CWTV magaalada Caabudwaaq bandow lagu soo rogay xilliyada habeenkii ah magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa dhaqan galay sida uu warbixintan inoogu dhameystirayo wariyahayaga sida Galayax Guulwade
waxaa xalay magaalada Muqdisho ka dhaqan galay badow ay dhawaan ku soo rogtay dowladda federaalka ee Soomaaliya kaas oo ka bilowday 8 fiidnimo kuna ee kaashanta subaxnimo wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho iyo xaafadaha qaar ayaa waxaa lagu arkayay ciidamo fara badan oo ka tirsan booliska Soomaaliya kuwaas oo kala eriyay dadka qaarkood oo wadooyinka taagnaa inkastoo badi la xiray goobaha ganacsiga maamulka gobolka Banaadir iyo taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa kormeer ku sameeyay 17 degmo ee gobolka Banaadir kormeerkan oo ahaa mid uu korgalayeen sida uu hirgalay bandowga lagu soo rogay magaalada Muqdisho taliyaha ciidanka booliska ayaa mar kale ku celiyay in bandowga uusan saameyn doonin wariyaasha dukaamada lagu iibiyo raashinka qalalan isbitaalada iyo dadka xanuunsan waxaana uu ciidamada faray inay si wanaagsan ula dhaqmaan shacabka waxaan iyagana aad iyo aad uga mahadcelinayaa ciidamadaas oo kala goos walba taagnaa annaguna aanu ku tartargelinay inay dadweynaha si fiican ula dhaqmaan in dadka wadooyinka maraya ee iska lugeynaya ee ama raashin doonanaya soo qalalan soo gadanaya ama dhakhtar u socda ama qof soo eegay wadada maraya inaan xagee u socotaa la dhihin ee ay tahay waxa uun aad iyo aad looga walwalsanaa ay tahay meelihii la yidhi hal la xiro kow inay xiran yihiin labo dad badan oo meel isugu yimaada oo kuraas dhigta oo hor fadhiista taasna waxay ahayd sida tacliimaadka ay nafarayaan wasaaradda caafimaadka inaan dad meel wada fadhiya aan markaa loo ogolayn laakiin qofkii soconaya ee danihiisa u socda ciidanka booliisku inuusan istaajin oo dhihin xaggee u socotaa waxaa la miigada gaadiidka shaqada u socda iyo kuwa caafimaadka u socda iyo kuwa la yaqaano iyo kuwa wada muxuu ahaa ama khudaarta ama baabuurta waaweyn furdada habeenkii ka shaqaynaysa inaan baabuurta la joojin oo shaqadooda caadi ay u socoto la sidiidayo baabuurta badan iyo bajaajyada badan iyo ciriiriga badan si looga hortago cudurkaas dilaaga ah danta guuda laga leeyahayna waxa weeye in muxuu ahaa cudurkaas uusan ugu faafin sida caawa balantu ahayd 8 fiidnimo waxaa magaalada Muqdisho ka dhaqan galay bandowgii lagu ballamay dhowr casho ka hor kaas oo ku saabsanaa sidii looga hortagi lahaa faafidda cudurkan COVID-19 oo runtii muddooyinkii u dambeeyay adduunka saameyn aad u xooggan ku yeeshay noloshooda iyo dhaqaalahooda iyo caafimaadkooda intaba si taas looga hortago dawladdu waxay soo saartay amar guud oo ku saabsan in habeenkii wixii ka dambeeya 8 fiidnimo aan wax dhaqdhaqaaq ah marka laga soo tago goobaha caafimaadka iyo goobaha nolosha bulshada daruuriga u ah marka laga soo tago in inta kale la xiro caaway 8 fiidnimo magaalada guud ahaanteed waa ka dhaqan gashay waxaan tagnay dhowr degmo oo kala duwan laga soo bilaabo degmada Cabdicasiis Yaaqshiid Xamarweyne Boondheere Howlwadaag oo hadda joogno Baarobax isgooskii Baarobax guud ahaan magaalada waxaan uga mahadcelinaynaa shacabka sida wanaagsan oo ay u fuliyeen amarkii oo ay u qaateen badqabkooda ayagoo ka fakaraya caafimaadkooda iyo nolosha dadka magaaladan deganba inay guryahoodii ay ku xaroodeen xilli hore oo 8 sida galayax gulwade CWTV magaalada Cabudwaaq madaxda ugu sarreysa ururka ahlu sunna wal jameeca oo war-saxaafadeed soo saaray ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay galmudug gacanta u gelisay kooxo argagixisa sida uu warbixintan inoogu dhameystirayo wariyahayaga Mahad Bashiir Xilif al-sunna wal jameeca ayaa cadaysatay in aysan jirin wax heshiis ah oo dhex maray iyaga iyo dawladda federaalka ama maamulka madaxweyne Qoorqoor Tona war-saxaafadeed uu soo saaray Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo kamid ah hogaamiyaasha sare ee ururka ayaa eedeyn badan loogu jeediyay dawladda federaalka ee Soomaaliya dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay xoog ka saartay burburinta heshiiskii taariikhiga ah ee Djibouti si ay meesha uga saarto ahlu-sunna wal jameeca ayna gobolada dhexe ugu abuurto kooxo xag jir ah ee al-shabaab iyo Daacish iyadoo ka dhistay maamul aan loo dhameyn kana turjumayn labadii maamul ee hore u midoobay ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay hoggaanka ahlu-sunna war-saxaafadeedkan ayaa sidoo kale lagu yiri waxa cadeynaynaa in uusan jirin heshiis ay gaareen ahlu-sunna wal jameeca iyo dawladda federaalka iyo maamulka ay dawladdu ugu dhistay galmudug magaalada Dhuusamareeb sida dulsaarka ah ee laga keenay magaalada Muqdisho
Al-Sunna ayaa qoraalkan ku sheegtay in aysan qayb ka ahayn dhismaha maamulka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay wado ayna ka wado deegaanada Galmudug waxayna ugu baaqeen bulshada reer Galmudug in ay u istaagaan ka hortagga waxa ay ku sheegeen kooxaha xagjirka ee ku soo duulay dalka sida lagu yiro qoraalkan. Al-Sunna wal Jamaaca waxa ay markasta diyaar u tahay in bulshadeeda ay ka badbaadiso in lagu dhexfaafiyo afkaarta xagjirka si aysan bulshada dhexdeeda uga dhalan afkaar isqarxin isgaalaysiin ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay hoggaanka Al-Sunna. ugu dambeyntii qoraalka Al-Sunna wal Jamaaca ayaa waxa lagu sheegay in beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeedba ay u cadeynayaan in dowladda federaalka iyo cid kasta oo ku gacan siisay in ay ka shaqeeyaan burburinta Galmudug iyo in dagaal la galo Al-Sunna wal Jamaaca si ay fursad ugu siiyaan Al-Shabaab in ay dib ugu soo laabtaan dagaaladii ay Al-Sunna wal Jamaaca ka xoreysay 12 sano ka hor sida lagu yiri qoraalka balse Al-Sunna aysan aqbali doonin arintaasi mas'uuliyad xumadeeda ka dhalatana ay qaadi doonto dowladda federaalka. waa Mahad Bashiir Cismaan Mahad Xilif telefishinka caalamiga CW magaalada Cabud Waaqi bartamaha Soomaaliya. iminkana daawadayaal akhbaaraadka dibadda dowladda Mareykanka ayaa ka fakaraysa sidii ay uga hortagi lahayd caabuqa halista badan ee sida degdega u faafa ee coronavirus. daraasaad ay sameysay jaamacadda Harvard ee dalka Mareykanka ayaa tilmaantay in Mareykanku uu sii wadi doono adeegsiga sharciga maamulayo isu dhawaanshaha bulshada isla markaasina uu sii shaqeyn doono ilaa inta laga gaarayo sanadka 2022 iyadoo ujeedaduna ay tahay xakamaynta faafidda fayraska corona oo si xoog leh u saameeyay dalka Mareykanka. sharciga kala fogaanshaha dadka ayaa la marin doonaa haddii ay sii xoogeystaan awoodda Mareykanka uu u leeyahay ka hortagga coronavirus ama la helo dawooyin ama tallaalo looga hortago caabuqaas. jaamacadda Harvard waxay tusaale u soo qaadatay tillaabooyinka ay qaadeen dalalka South Korea iyo Singapore iyagoo si adag uga hirgelinayo kala fogaanshaha bulshada iyo in loo xayiro dhammaan goobaha la isugu yimaado. waxayna jaamacaddu tilmaantay inay Mareykanka u baahan yahay inuu sii adkayso ku dhaqanka tallaabooyinkaasi oo kale. daraasaadka jaamacadda ay Mareykanka waxaa sidoo kale lagu tilmaamay inay saameynta coronavirus uu u geystay dalka Mareykanka iyo guud ahaanba caalamka ay aad u badan tahay inay cawaaqib xumo dhaqaale oo caalamka wada gaara ay ka dhalan karto haddii aan si degdeg ah looga qaban oo aan la soo afjarin. guud ahaanba daawadayaal intaas ayaynu ku soo afmeeraynaa war wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray oo aad ka daawataan telefishinka caalamiga ee CW. warkana waxaa idinla soo codsiinayay anigoo ah Mawlid Jaamac Faarax Mawlid Galwa. aniga iyo intii gala qayb qaadatayba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaano Allah iyo is arag dambe oo xiiso leh.